السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا سومالي تكنولوجي فضلا سبسكرايب هذا هو سبسكرايب أوران إن waxaan weli ku guda jirnaa casharadii taxanaha oo ka hadlayay barashada Facebooka ama Facebook tutorial waxaan soo aragnay casharka ugu dambeeyay waxaan soo aragnay Facebook Watches ama qaybta muuqaalada Facebooka ah maanta waxaan bilaabaynaa Facebook Pages okay Facebook Groups oo soo laabanana Facebook Pages ayaan ku horumarinaa okay Facebook Pages muxuu yahay Facebook Pages waxa weeyaan waa page markaas uu qof furan karo ama business uu furan karo ama organization markaas ay furan karaan dabeed halkaas ay kula xiriiri karaan dadweyne aad u fara badan okay marka sababta Facebook Pages uu ka duwan yahay waxa ka wada Facebook Pages uu ka duwan yahay Facebook profile qof hal qof ayaa iskale ama hal shakhsi ayaa iskale laakiin Facebook Pages waa brand ama waa ganacsi ama waxa weeyaan waa organization ama waa school ama waa qof public figure qof aad iyo aad u caan ah ayaa iskale okay dadka qofkaas ku xirmi karana waa dad ciidas ka badan oo 100,000 ay gaarayaan laakiin halka Facebook profile-ka dadka marka qofka ku soo xirmi kara ay gaarayaan 5,000 oo kaliya marka aan aragno Facebook pages okay marka page marka ku dhufatid page okay wuxuu ku furayaa khaanadaas waxa ka soo muuqanaya page markaas adigu manage gareysay okay page marka adigu abuuray dabeeta manage gareysay okay marka all these pages waan ana abuuray qaarna waa manage gareeyaa dabeeta waxaad ku dhufanaysaa create okay saa page cusub aad abuurid marka laba option ayuu ku siinayaa okay business or brand waa page ganacsi iyo community or public figure ama waa dadka caanka ah ama waa ururada bulshada okay ururada bulshada waxa weeyaan waa hay'adaha dawliga aan ahayn iyo markaas dadka markaa caanka ah oo public figure sida fanaaniinta iyo dadka markaas magacooda bulshada uu caan ka yahay okay marka tusaale ahaan haddaan rabo inaan ganacsi aan abuuro page wax ku dhufanaya start okay laakiin qaabka loo abuuro waa isku mid waxay kala duwan yihiin templateska waa arki doonaa marka page-ka abuurno ayaan templateska qaabka looga bedelo iyo templateska marka aad choice-kaaga qaabka loo doorto waan u tagaynaa waan arkaynaa waxay kala duwan yihiin marka labadooda waa template-ka laakiin process-ka loo abuurayo ama loo create karinayo is the same okay marka aan doorano business or brand okay page ganacsi start aad ku dhufanaysaa dabeeta magaca page-ka ayaa gelinaysaa okay somtech ayaan geliyba okay dabeeta waxaan category ayaa laga rabaa ama small description okay add category to describe your pages okay marka waxaan oranayaa electronic company electronic shop ayaa oranayaa okay dabeeta wuxuu weydiinayaa addresses okay si street marka qaarkood kuma weydiiyo marka qaarkood uu ku weydiiya depends on the Facebook okay Facebooka iyo markaas qaabka data Facebooka aad I don't know depends on the Facebook macnaha group aan abuuray hore u abuuray ima weydiin marka qaarkoodna way weydiiyo okay marka wax ku xiran tahay Facebook datadiisa iyo qaabka markaas uu xogta ku siinayo okay marka halkan wuxuu weydiiyay streets ayuu weydiinaya okay and let me choose Kenya ama Rubaga Road okay dabeed wuxuu ku weydiinayaa city and country okay Kampala Uganda okay Kampala Uganda okay dabeed wuxuu ku weydiinayaa postal code waa furaha wadanka okay 256 marka adigu wadanka joogtaa hadaa Soomaaliya joogto waa 252 hadaa wadanka la joogtana waa furaha wadanka lagu galo ayaa wax loo yaqaanaa post code dabeeta waa dhamaysay waan gelinay meeshii halkan waxaan ka dhigaynaa don't show my address only show town city and region okay marka haddaan tigta saaro wuxuu qarinayaa telephone numberka iyo wuxuu qarinayaa iyo addresska streetka aan ku naalno laakiin wuxuu tusayaa Kampala Uganda ayuu dadka tusayaa kaliya okay laakiin anigu ma rabo inaan qariyo addresskayga telephone numberkayga waxaan rabaa inuu halka ka muuqdo dabeeta waxaan oranayaa continue okay uu process garanaya xogta uu abuuraya page-ka dabeeta khaanad cusub ayuu noo furaya okay khaanada cusub muxuu leeyahay add your profile picture okay add your profile picture help people to find your page by adding your photo okay marka waxaad ku daraysaa profile picture-ka okay hadaartid waxa oranaysaa escape hadaartid waxa oranaysaa upload right now marka si page-kan
adigu haddaad picture haystid waxaa odhanaysaa upload, laakiin anigu hadda picture ma haysto, laakiin waxaa odhanayaa escape. dabeetna wuxuu weydiinayaa cover picturekan, cover pictureka, profile pictureka waa kaa yarka ah, cover picturena waa midkan yaro weyn. dabeetna asna ma haysto, waxaa odhanayaa escape. Okay, laakiin adigu haddaa haystid waxaa odhanaysaa upload. Okay, tusaale ahaan, laakiin gadaal ayaa ka bedeli doonaa, escape aa odhanayaa. Okay, pagekii hadda waa la abuuray wuuna furmay. Okay, laakiin wuxuu u baahan yahay ka shaqeyn in pageka laga shaqeeyo oo markaas pageka la hagaajiyo, si hadday noqoto description, hadday noqoto details, hadday noqoto tabiskan aan kusoo darano, hadday noqoto templateska, hadday noqoto button, hadday noqoto buttonka inaan ku darno, hadda waxa button kuma jiraan, iyo hadday noqoto inaan cover picture iyo sawirka aan soo saarno, iyo hadday noqoto messaging, everything. Okay, marka halkan waxaa noo bilaabaya inaan pageka aan ku samayno editing ama improvement wax loo yaqaano. Okay, tusaale ahaan, let me change the picture. Okay, upload photo. Okay, sawirka dooranaysaa, dabeed saas ku saarmaya sawirkuna. Okay, waa very easy. wuxuu ku leeyahay drag and drop, you can drag and drop sawirka. Okay, you can just, okay, meeshan hoose ayaad ku dhufanaysaa. Okay, drag and drop. Okay, dabeed waxaa odhanaysaa save. Okay, saas ayuu ku saarmay profile pictureki. Okay, markaad saaratid profile pictureka, dabeeta cover pagena waxaa odhanaysaa add cover page, dabeeta waxaa odhanaysaa upload. Okay, dabeet waxaad dooranaysaa cover pageka sawirka oo horey adigu usoo habaystay. Okay, marka sawiradan cover pageka iyo profile pictureka way kala duwan yihiin, isku size maan. Okay, laakiin adigu waa inaad horey usoo habaystaa labada sawirba. Okay, dabeet waxaa odhanaysaa save. Okay, cover pagekana saas ayuu ku save gareysmayaa. Marka pagekii hadda waan habeynay, laakiin waxa ka dhiman editing. Editingka saan ugu darno pageka, waxaan ku dhufanaa qaybta sare oo ku qoran tahay edit page information, page info. Okay, marka qaybtan waa qaybta inta badan pageka aan editingkiisa ama improvementkiisa aan ka samaynayno. Okay, aan ku dhufto hadda edit. Okay, khaanadan ayuu ii furay. meesha waa meesha informationka pageka informationkiisa dhan aan gelinayno, so markaas informationkaas waa customerka ama macaamiisha uu ugu bandhigo pageku. Okay, maxaa ku qoran halkan? qaybtan waa iska daa, waa COVID-19ka, waa coronaviruska informationka saas ku tagaynaa, saasaan uga dhaafaynaa. qaybtan waxa weeyaan descriptionka. Okay, pageka descriptionkiisa. Okay, marka waxaa dooranay electronic shop, waa inaan qeexnaa electronic shop waxay tahay, waxaan iibino, meeshaan ku naalno, waxaan qabano, adeegyadaas oo dhan waa inaan markaa halkaa gelina. Okay, waxaa dhan waa qoraysaa adigu. We don't have time right now, but adigu if you have time you type everything. Okay, I mean pagekaaga haddii yahay page real ah ama page aan tusaale ahayn, pagekan waa tusaale camal ayaan idin tusiyaa, laakiin pagekaaga markuu real yahay waa inaa wax real aad meesha aad ku qodid. Okay, you can type anything real. Okay, dabeeta markaad descriptionka pageka aad qodid waxaa odhanaysaa save. marka meeshan waa khaanado isdaba yaalla, khaanadba khaanad kale lama xiriidho. Okay, there's no way you can say save all, no. marka khaanad kaste save gooni ayay leedahay. Okay, marka khaanada markaan editing aan ku sameeyo descriptionka save ayaan odhanaya. dabeet waxaan imaanayaa khaanada category. categorygana waa badin karaa. Okay, electronic shop soo maahan, waxaan ku dari karaa oo kale waxaan iibiyo sida laptop, computers. Okay, computer shop, mobile shop, everything. Okay, mobile phone shop. marka categorygu inta badan dadka markaa soo raacaya ayay u qeexaysaa waxa laga heli karo pagekaaga ama waxa I mean shopkaaga ama ganacsigaaga waxa laga heli karo. Okay, waa adeegyada ganacsiga oo markaa uu bixinayo categoryga. I think like that. marka adigu waad ku dari karaa as long as you have more category, you put here more category. Okay, save ayaa odhanaysaa iyana categoryga markaad dhammaysid. halkan waxaa ku weydiinayaa contact telefonka, waa hal telefon soo maahan.
waa badin kadhaa telefonada. Okay, another phone ayaad ku dari kadhaa. Halkan furaha dooro Uganda ka dhig halkan. Let me click Uganda. Let me choose Uganda. Okay, Uganda soman. You can add more other phones. Okay, telefono kale ayaad ku dari kadhaa oo ah extensional option. Waa option lagu siiyo wayaan oo markaas aad telefonada aad badin kadhid. Save ayaad oranaysaa iyana. sidoo kale haddaad website leedahay halkaas ay gelinaysaa, laakiin hadda website ma lihin, mana haysano, waan ka gudbaynaa. waxaan calaamadan ayaa tigta saarayaa maybe does have website. adna waa haddaad website page-kaaga uusan haysan calaamadaas ayaa tigta saaraysaa. halkan waa haddaad email aad leedahay address, hadda waqti uma hayno, laakiin emailka ayaa halka gelinaysaa oo markaas customerkaaga ama macaamiishaada ayaa kaala soo xiriiraya emailka. halkan waxa weeyaan waa address ama location, waa meesha aan ku naalno ama meesha markaa page-ku ku yaalo. Okay, marka hadda halkan waxa weeyaan Kampala Soomahan, Kampala Uganda. dabeete Kampala ayuu ku tusiyaa, cidii kale taqaan Kampala way fahmaysan address-yaan oo dhan waa Kampala. dabeete waa dooranaysaa meesha markaa adigu aad ku taalid ama meeshaas markaas laga heli karo. Okay, Kenya ayaa gelinaya. dabeete waad ku jiidaysaa, waxaad imaanaysaa Kenya. Okay, City Square BK. Okay, City Square, near the City Square Hotel. Okay, your location fine. dabeete waxaad oranaysaa save. oo markaa location-kaaga aad dooratid wayaan, oo markaa aad saxdid save ayaad oranaysaa. Okay, marka macaamiisha waxaana location-kan ayaa arkayaan meesha ku taalid, halkaas ayay ku ogaanayaan. save markaa iraahdo maxaa. Okay, halkan waxa weeyaan waa service area. Okay, add neighborhood, town, city or region. waa meelaha markaas service-kaaga uu gaarsiisan yahay. Okay, ma Kampala bas ku egtahay mise Kampala oo dhan, degmooyinka Kampala kaaga dhow oo dhan ayaad gaarsiin karaa adeegaada. Okay, marka haddaan aan Kampala adeegyada Kampala bas ku yihiin waa ka gudbaya halkan, laakiin hadda adeegyada ay ku yihiin Kampala iyo nawaaxigeeda waxaan ku qorayaa degmooyinka markaa Kampala kaaga dhow ayaa halka gelinaya, waan taxaya. Okay, degmooyinka markaas aan my shop-iskaygu ama dukaan wax ku wada ganacsigaygu markaas uu gaarsiisan yahay ayaan taxaya. Okay, halkan waxa weeyaan waa hours, working hours weeyaan, marka waa xilliga markaas ganacsigaagu uu furan yahay oo markaas qofku uu imaan karo. Okay, marka maadaama anigu ganacsi waa dooranay, tii kale maana dooran. Okay, marka waxaad ku dhufanaysaa always open. marka always open hadda ku dhufato waa 24 hours. marka 24 hours waa non stop. marka ganacsigaana waa ganacsi online ah oo markaas aan la xirayn. laakiin haddii yaa ganacsi la xirayo sida makhaayad oo kale ama sida dukaan oo kale ama sida markaas meel adigu la xirayo oo kale, dabeed waxaad dooranaysaa open for selected hours. saacadaha macnaha adigu aad dooranaysaa saacadaha. Monday oo kale waxaad oranaysaa waxaa la furayaa at 7. Okay, at 6 baan ka dhignay, 6 morning ayaa la furayaa. Okay, dabeed waxaa la xirayaa 12 in the evening. Okay, marka dadku arkayaan saacadaha bas ku furan yahay. Okay, markii la gaaro 12 Facebook muxuu qorayaa closed. marka qof kasoo markaas 12 wixii ka dambeeya page-kaaga soo booqda wuxuu arkayaa closed, waa xiran yahay ganacsigan. Okay, marka waxa isku wareerin maayo, dabeed kulliga waa dooranaysaa. Okay, 6-12. Okay, marka maalinta jimcaha oo kale waxaa laga yaabaa inaad 11 xidid oo salaad jimcaha aad aadid. dabeed 11 ayaad ku qoraysaa. Okay, waxa ka wada halkan waxaad ka dhigaysaa morning baa ka dhigaysaa. Okay, 6 morning up to 11:15 ayaad ka dhigaysaa. Okay, 11:15 macnaha halkan waxaa noqonaysaa morning ayaad dooranaysaa. Okay, laakiin kuwan oo dhan waxa weeyaan waa in the night. Okay, 12 in the night weeyaan, smart 12 in the night, laakiin tan waxa weeyaan waa 11 morning, 6 morning up to 11 morning weeyaan. Okay, haddii artidna waa raacin karaa AMT si dadku marka ogaadaan inay halkan morning tahay aysan markaas aysan ahayn in the night. kulligood tigta saaraysaa. haddaa Sunday oo kale ganacsigaagu off yahay oo kale tigta ayaa ka qaadaysaa, dabeed off-taas ayaad ku daynaysaa. Okay, marka Sunday ganacsigaagu totally ma shaqeynayo, the whole day maalintaas oo dhan ganacsigaagu waa off oo ma shaqeynayo. dabeed save ayaad oranaysaa. Okay, marka calaamadahan balaasana waxbaa ku dari kadhaa waa custom. Okay, let me show you how to add things. Okay, you can add jimcaha kale Friday
Okay, you open at 2 alif up to 1. Okay, marka 11 am salaada kasoo laabanaysaa. Okay, at 2 alif up to 2 alif in the night, or up to 1. Okay, up to 2 alif in the night uda. Okay, marka 2 alif up to 2 alif in the night waa ku kordhin kada. Okay, you can add more even. That's all. What next? Temporary substrate. This one I don't know, and maybe you Google, you can Google even. And then this one waxa weeyaan waa price. Okay, lacagta aad markaa isticmaalaysid ma euro, dollar. Okay, I think shilin Soomaali lagama heli halkan ka gudub. Halkan waxa weeyaan waa markaas waa adeegyada markaas ay iibinaysid. Okay, what do you sell? Computers, laptops, smartphones, smartwatches. Okay, marka people they are gonna see this one. People they are going to see this, the list of product that you put here. Facebook wuxuu tusiyaa marka dadka soo boqdo page-kaaga. Okay, sorry halkan waxa weeyaan waa halkan waxa weeyaan privacy and policy weeyaan. Ma hadaad policy ay ku degsan tahay weeyaan, privacy and policy. Okay, I think waxa moodaya inay tahay product risk. Marka halkan waxa weeyaan waa privacy and policy. Okay, waa hadaa xeerar leedahay kale xeerarka ayaa ku qoraysa. Okay, sida no abuse oo kale, I mean no abuse iyo wixii la mid ah. Waa hadaa marka xeerar adigu ku degsan yihiin oo kale waad ku qoraysaa. Okay, marka qofka xeerarkaasi wuu arkaya. I think what is it, price description, product, I think tan ku dhaafayna. Okay, marka product, I think product. Okay, adigu waa at all. Okay, if it shows you product, waa taxaysaa product marka iibsid. Otherwise let's leave here. Okay, marka page ka waan editing ma ku sameynay, description-kii oo dhan waan gelinay, dabeeta save na waan niri and page ka ku laabana marka. Okay, let's go back to page. Okay, let's go back to page. Then we come to about section, where we can see what we have put, and then we see even Kambala Kisenyi, and then we see the number to call, and then category ka waa aragnay. Dabeeta waxaan arkaynaa page information ka, see about description waa kan page description kiisi, and sidoo kale. Okay, that's all. Markaad about ku dhufatid, halkan picture waa gelin kadhaa oo ah history. Okay, our history waxa weeyaan waa adigu waa wax ku saabsan ganacsigaas ama wax ku saabsan waxa weeyaan shirkadaas. Marka ma garatay, tusaale ahaan oo kale haddaan ku dhufto meeshaas aad ay ku qoran tahay Plasta, halkan waxaan gelin karaa sawir. Okay, drag photo here. Halkan waxaan gelin karaa title. Okay, marka waa aduu ganacsigu dhab yahay, wax ku saabsan ganacsiga sida missionkiisa, visionkiisa, dreamkiisa, waxa hiigsanayo, waxyaalaha uu dadku soo bandhigo, waxyaalaha ayaa ku qoraysa. Okay, laakiin ka duwan description-ka. Okay, description-ku waa qayb yar oo marka ganacsiga qeexaysa, laakiin your history ama your taariikhdaadu waa wax company-ga marka khuseeya. Okay, you can put a whole company here. Okay, taasna halkaas ayaan ku dhaafaynaa. Okay, what next? Pattern. Halkan waxaan rabaa in qofka aan tuso pattern sida message me or call me or WhatsApp me, wax noocaas. Okay, aan ku dhufto add button. dabeet waxaan dooranayaa patternada nooca aan rabo. Okay, haddaa ganacsigayga online yahay waxaan dooranayaa shop with you. Okay, marka qofka ku dhufto wuxuu qaadayaa page, buy page sida add to cart or buy now, wax noocaas. Okay, laakiin hadda ganacsigayga online maahan, waa contact. Okay, marka waxaan rabaa qofku inuu ila soo xiriiro sida contact us ama send me message ama call me right now. Okay, ama WhatsApp me ama send me email. Okay, marka waxaan ku dhufanayaa call me now. Okay, marka qofku markuu dhufto call me now, lambarkii ayuu soo wacayaa directly immediately. Okay, waa aragtay call me now. dabeet waxaan oranayaa next, finish. Okay,
it ask me the number. Okay, telephone numberkii automatically uma soo qaban, laakiin waa inaad gelisid telephone numberkaaga. dabeetna waxaan ku dhufanayaa save. Okay, finish. dabeetna qofku horey uga soo wacaya haddii call me ku dhufto caadi waa laga soo wacaya. Okay, inta kaliya miya may waxyaalo badan ayaa harsan oo markaa page-ka aan kusoo kordhin doono. Okay, waxyaalaha harsan waxaa ka mid ah sida message, instant message, sida inaan WhatsApp halkaa soo saarno WhatsApp number kana qof markuu dhufto WhatsApp-ka la geynayo, iyo sida iyo waxyaalo badan. Okay, marka edit wax ku laabanaynaa edit page information ayaan ku laabanaynaa. casharkan wuu yaro dheeraanayaa, casharada kale way gagaabanaayeen, kan wuu dheeraanaya sababtoo ah pageska waxyaalaha marka wax lagu soo darayo. Okay, iyo marka wax laga bedelayo waa xoogaa Facebook-na waa culus yahay, marka waqti ayay nagu qaadanaysaa. Okay, no problem. inkastoo aan wax baranayno marka dhima lahan. Okay, marka halkan waxa weeyaan waa page information-kii waa aragnay qaybtan. waa page information. halkan waxa weeyaan waa general maxaa ku jira. Okay, let's click general and we see what's in general. Okay, marka halkan waa page visibility waxa weeyaan waa page-ka marka in la qariyo ama in la muujiyo. Okay, visibility waxa weeyaan waa qarin ama muujin. marka halkan waa visibility, halka wuu muuqdaa waa page publicity. Okay, laakiin haddii aad page-ka qarisid waxaad ku dhufanaysaa unpublished. marka page-kaas wuu yara qarsoomaya, waxyaalaha ku jira iyo waxyaalaha soo post garan way qarsoomayaan. waa haddaan ku dhufto page unpublished. Okay, marka hadda page-ka qarinayso way isku meel gaara, waxaad ku dhufanaysaa unpublished. halkan waxa weeyaan waa visitor post, waxyaalaha oo dhan you can check. Okay, I cannot explain each and everything. marka all of them even is self explanatory. waxaan oo dhan waa just waa yes or no, waa dooranaysa. Okay, waa si message oo kale. My page that people can contact my page privately, yes or no weeyaan. marka ku dhufatid wuxuu ku leeyahay haddaad TikTok ka qaadid waa no weeyaan, haddaad TikTok saaridna waa yes. Okay, marka everything you can check. Okay, laakiin waxaan rabaa inaad intuso dadka page-ka waxaad ka xanibi kadhaa wadamo khaas. Okay, hadda country restriction wadamo khaas ayaa rabtaa dadka joogaynaysa page-kaaga ay soo follow gareyn ama aysa kusoo darsan. Okay, laakiin hadduu ganacsi yahay page-kaaga waa open, laakiin page-ka waxa weeyaan private-ka ah oo baa isticmaalay inta badan. sidoo kale age restriction, sidoo kale age moderation, dan ma garanay. Okay, similar page suggestion. Okay, all of those things. Okay, you can do it. Okay, marka halkan waxa weeyaan waa page update. all of them you can do it. download page. Okay, marka waa page-ka hadduu waqti badan shaqeeyay, marka xogta page-ka dhan ayaa soo download garaysanaysa. Okay, wax kasoo post garaysay, wax kasoo gelisay, taariikhda wax kasta ayaad wax ku dhufanaysaa download. markaas ay ku soo degayaan, markaas ayaad tixraac ku samayn kartaa. Okay, warqada laptop-ka ayaa ku save garaysanaysaa iyadoo ah warqada caadi ah ayaad ku save garaysanaysaa. Okay, marka halkan waa remove page, waa marka page-kaas ka dhalidisid. halkan waa merge page, merge. Okay, waa markii page kala artinaad iyo page-ka isku dadid. waa policy ayaa siyaasad rules ayaa jira marka la raaco. waa inay labada page isku mid ahaadaan, identical, similar. waa inay wax ku jira contact-iga labada page soo post gareeyay waa inay xoogaa isku mid ahaadaan ama isku ekaadaan, markaas ayaa labada page isku dari karaa. Okay, oo hal page ka wada dhigi karaa. that's all general. Okay, marka aanu tagno message. Okay, message ana maxay tahay. Okay, message waxa weeyaan waa marka aan aragna. Okay, waxayaan ka hor dhicin. Okay, waa adigu waa message. Okay, waa in fariimo lagu soo diro aadna aad response aad ka jawaab celisid. Okay, send someone and then you respond, but response is automatically. Okay, marka qaarkood waa aragtay page-ka message ayaa u diraysa automatically waa lagu soo jawaabaya. yaa ku jawaabaya Facebook-ka, marka waa wax la set up gareeyay oo marka jawaabo la qiyaaso oo la set up gareeyay weeyaan. Okay, salaam wuxuu leeyahay message settings. Okay, marka waa tan qaybta message-ka. dabeet halkan waxa weeyaan waa general settings, use the return key to send the message. Okay, marka halkan waa on, saas ayaan ku dhaafaynaa. halkan waxa weeyaan start a message conversation. Okay, marka show a greeting oo tusaale ahaan oo kale waa in qofka salaana oo kale. dabeet hi Ahmed chat, thank you for getting in touch with us. Okay, marka kan oo kale waa automatically qofku baa lagu diraya, Facebook ayaa u diraya, laakiin waa bedeli karaa qoraalkan. Soomaali ahaan waa ka dhigan karaa, Carabi ahaan waa ka dhigan karaa, waad bedeli karaa. Okay, edit ma ku samayn karaa, change ayaad ku dhufanaysaa. dabeet qoraalka dhan ayaa bedelaysaa. marka qoraal adigu markaas aad leedahay ayaad gelinaysaa. Okay, waa aragteen hi
I have a question marka qofku soo diro hello I have a question adigu waxyaala aragtid ayaad gelinaysaa meesha oo kale soo martan okay laakiin magaca waa ku dhaafaysaa Axmed Chad ama magaca marka page ka abuuray waad u dhaafaysaa laakiin inta kale ayaad tiraysaa hi how are you ama hi sidee tahay adigu hadda we don't have time laakiin waxyaala la qoraysaa dabeetana waxaad oranaysaa save okay dabeetana it's automatic as long as tani on tahay it's automatic okay marka qofku ku soo diro kale hi ayaa automatically response ayaad ugu diraysaa okay dabeetana waxa weeyaan halkan waxa weeyaan waa haddii aad rabtid inaad messengerka aad website-kaaga ku dari waa haddii website leedahay okay website-kaaga ayaad ku dari karaa oo dadku website ayagoo website-kaaga ku jira ayay messenger ku diri karaan halkan waxa weeyaan waa set up automatic response ayaa halkan set up gareynaysaa okay how to set up automatic response waxa weeyaan marka qofku wax ku weydiiyo kale inaad jawaab celin aad u siisid okay laakiin inuu soo qof qorin laakiin automatically Facebook inaad xogta ku save gareysid dabeetana marka su'aasha la weydiiyo uu Facebook automatically jawaabta ugu diro weeyaan okay let me show you how to set up okay marka automatic response ay ku furanto khaanadu okay marka halkan waa aragtiin waa marka away tahay oo marka Facebook aad ka maqan tahay offline aad tahay oo kale marka halkan waxa weeyaan greet people tan waa soo aragnay diiwaanki aan set up gareynay greet people marka halkan waxa weeyaan instant reply waa automatically ina qofku markaas aad reply oo siisid away message oo kale waa message ka maqan tahay oo kale tusaale ahaan meeday let me edit okay tusaale ahaan oo kale thank you for your messaging we are away and we cannot respond at this time we appreciate your getting started marka qofku waxaad u sheegaysaa inaad offline tahay oo marka online ku soo laabatidna aad jawaab siin doontid okay dabeetana waxaad oranaysaa edit marka edit ku dhufatid message-ka halkaas ayaa ku qoraysaa okay waan ka xunaay online manihin marka online soo noqono ayaa si degdeg ah kugu soo jawaabayna noo dul qaado yar waxyaala ayaad qoraysaa okay marka soo jiidasho loo marka qofku ku qancayo dabeetana marka qodid save ayaa oranaysaa okay hadda time mahayna ma qorino laakiin waan ku tusay okay save ayaa oranaysaa dabeetana marka qofku message ku soo adna offline tahay Facebook ayaa message-kan u diraya automatically okay marka qofku qancaya uu ku sugaya inta online aad ku soo qoraysid taas waa taas ta kale waxa weeyaan frequency ask question okay su'aalaha ayaa si qiyaasaysa jawaabahana Facebook ayaad u dhiibaysaa marka soo qofku su'aashaas ku soo weydiiyo jawaabta Facebook aad siinaya adigu ma siinaysid okay aan ku dhufano marka halkan okay okay halkan waxa weeyaan frequency ask question waa su'aalaha markaas adigu si qiyaastay in lagu weydiin doono ama in customer-kaaga ama dadka macaamiishaada ay ku soo diri doonaan dabeetana jawaabaha ayaa Facebook u dhiibaysaa automatically ayaa lagu jawaabaya okay aan ku dhufto halkan frequency dabeetana edit ku dhufo dabeetana waxaad tagaysaa meesha ka qoran tahay question and response okay dabeetana halkaas ayaa su'aasha ku daraysaa tusaale ahaan oo kale waxaa isleeyahay qofkan wuxuu ku weydiin doonaa assalaamu calaykum ayuu ku weydiin doonaa ayaa isleedahay dabeetana wa calaykum assalaam intaas ayaan u qoraya save ayaa oranaya waa su'aasha koobaad okay haddaan rabo attachment ayaan raacinaya si file oo kale waa haddii markaas aad serious oo business-kaagu markaas serious yahay attachment waxyaalaha EBC product-kaaga ayaad files ayaad soo raacinaysaa marka file-ka iyo assalaamu calaykum la socdo ayaa loo wada diraya laakiin hadda anigu file ma haysano dabeetana waxaan oranaa save okay waa su'aasha koobaad su'aalaha inta harta ayaad ku daraysaa inta hartid any question you like it okay add another question okay add another question 2 weeyaan question 2 sidoo kale wuxuu weydiin doonaa maxaad iibisaan dabeetana waxaan iibino ayaan halka u qoraya okay all what we sell su'aasha saddexaad sidoo kale waxyaalaha marka isku isleeyahay anaa sii qiyaasayo oo markaas business owner ah oo ganacsiga iskale okay waxaana u sii qiyaasayaa dadka markaas macaamiisheeda su'aalaha ay weydiin doonaan Facebook ayaa jawaabaha ugu dhiibaya dabeetana waa automatically okay taasna waa frequency ask question okay job application sidoo kale qofku shaqo ka soo codsan karaa maadaama ay ganacsi tahay waa inaad u ogolaataa inaad dadku shaqo ka soo codsan karaan you just put on okay job application and then you put settings marka I mean what's that
edit and message application received. This one I think Facebook ayad. Okay, that's what timing recently. Okay, message custom texting. We have received your application. Okay, tusaalahaan oo kale marka qofka shaqada kaasoo codsado kale oo marka codsiga soo dhamaystiro oo marka uu soo diro ayaa halkan waxa Facebook u dhibaysaa jawaab celin qofka loo diray oo kale. sidoo kale we have received your application and appreciate your interest in working for us. dabeetana intaan ayaa loo diray qofka. Hadda arta Soomaaliya aad ku qoraysaa waan ku maasan tahay codsiga aan soo diristay waan ku faraxsanahay inaad la shaqaysid ama shaqada naga soo codsatid. CV-ga waan eegi doonaa waan kula soo xiriiri doonaa. intaas ayaa u reebaysaa dabeetana qofka markaas intaas niyad u dhisaysaa oo farxad gelinaysaa. Okay, job application sidoo kale on ayaad ka dhigtay Facebook-an waa u dhibtay fariintii markaas qofka loo diray lahaa shaqada ka soo codsaday. sidoo kale flow up what's in the flow up. Okay, flow up sidoo kale appointment flow up page flow recommendation. Okay, all the things you can just read for your own. Okay, that's all. marka message halkaas aan ku dhaafayna waa set up garanay conversation iyo automatic message. Okay, message na waa dhamaynay hadda waxaan galanaa templates and tabs. Okay, we don't want video-ga inuu dheeraado. Okay, video waxa malan ugu dheeraaday laakiin casharka midka xiga ayaan waxa ka bilaabanaa templates and tabs. Okay, templates and tabs-ka waxay yihiin iyo wax ku hoos qarsoon iyo qaabka loo isticmaalo iyo qaabka loogu bedelo. Okay, ana other things casharka xiga ayaan ku baranaynaa inta si maanta nooga yahay. Fadlan ha iloobina subscribe tiradi Somali Technology. wixii fariimo ama wixii talaad su'aalaha comment-iga nagu reeb sidoo kale la wadaag asxaabtaada hadda video-ga ka heshay. waa mahadsantiin.